ويهلي شعيلو همي ببطاديو والهباك كعالو ويهيا sidee ayaad ku ogaan kartaa inuu ku hayo jacayl dhab mahuraanki noloshay madhafaanki dumarkiyo marwadii kalgacalkahay maankayga deeqadahay marka aad u gabiyeysid ama aad u heesaysid qofka aad jeceshahay ama xitaa aad ku matalaysid filimada waqtiga aad daawanaysid ee ka turjumaya jacaylka ma qiyaasi kartid xusuusta dareen ee maskaxdaada ku soo dhacda waxaad dareemaysaa waxaan caadi ahayn ma doonaysid xaalad kasta oo kale inaad ka hadasho waxaana ugu horeyn hormoonada dareenka jirkaaga aad siisaa qofka kuugu weyn ee aad qalbiga ku hayso dhab ahaantii dadka ku takhasusay miisaanka jacaylka waxay muujiyaan xadka iyo miisaanka jacaylka ee maskaxda ku jira laakiin ma ogaan karaan ilaa xaddiga aad u baahan tahay qofka aad jeceshahay haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa 10 calaamood oo cajiiba oo aad ku ogaan karto inuu ku hayo jacayl dhaba ogsoonow inaan ku jecelahay ana love you more than my life ana xibbak ya xabiibi nakupenda mimi sana waa ujeedada calaamadda koobaad waxay tahay xishood joogto ah mar walba oo aad la kulanto qofka aad jeceshahay waxaa ku galaya xishood ka badan xishoodkaadii hore waxaad dareemaysaa in badan aad ka xishooto qofka aad jeceshahay inaad nolosha la qaybsato waa qodobka koobaad oo aad ku dareemi kartid inuu ku hayo jacayl dhaba qodobka labaad wuxuu noqonayaa naxadin lama filaan ah inta badan marka aad sikadiisa ula kulanto qofka aad si dhab u jeceshahay waxaad faqti hore dareemaysaa naxadin xaddhaaf kadib ayaad ogaanaysaa in waxa ku haya uu yahay jacayl dhaba waana calaamadda labaad ee lagu garto in uu ku hayo jacayl dhab ah qodobka saddexaad wuxuu yahay dareen gooni ah inta badan qofka aad jeceshahay waa uu kaaga dhow yahay dadka kale waxaad u qadarinaysaa ama aad u dareemaysaa si ka duwan dadka kale dareenka gooniga ah waa qodobka saddexaad ee aad ku ogaan karto inuu ku hayo jacayl dhab qodobka afraad sheekada qofka aad jeceshahay oo aad u baahan tahay waqti walba mararka qaar markii uu kaa fogaado qofka aad jeceshahay waxaad tabaysaa ama aad u xiisaysaa in badan sheekadii hadaladii macaanaa iyo waqtigii aad wada qaadan jirteen qodobkaana waa qodobka afraad ee aad ku tabaysid ama aad ku ogaan kartid inuu ku hayo jacayl dhab ah qodobka shanaad maskaxdaada oo keliya isaga ka fikirta inta badan maskaxdaada waxaa ku soo noqnoqda muuqaalkii iyo erayadii iyo kulankiinii quruxda badnaa ee aad la qaadatay qofkii aad jeclayd waxaadna mar walba kugu soo dhacaya waxyaabihii wanaagga ahaa ee idin dhex maray qodobka lixaad masayr iyo shaki badan oo naftaada ku dhaca mar kasta oo aad dareento jacayl dhab waxaa naftaada ku badanaya masayrka iyo shakiga waxaadna in badan ka fikiraysaa qofka aad jeceshahay inuu keliya ku jecel yahay iyo inuu qof kale la socdo waana calaamadda lixaad ee aad ku ogaan kartid inuu ku hayo jacayl dhab ah calaamadda toddobaad waxay tahay muuqaalka qofka oo indhahaada aan ka maqnayn mar waliba waxaa ku soo hor istaagaya muuqaalkii quruxda badnaa ee qofkii aad jeclayd marka uu kaa maqan yahay in badan waa tawaysaa laakiin muuqaalka qofka ayaa mar waliba ka muuqanaya indhaha goortood waana calaamadda toddobaad ee aad ku ogaan karto inuu ku hayo jacayl dhaba qodobka siddeedaad wuxuu yahay xushmad xaddhaaf ah oo aad siiso qofka aad jeceshahay mararka qaar waxaa dhacda in aad dareento xushmad ka badan inta aad u qabtay dadka kale qofka aad jeceshahay mar walba oo aad la kulanto waxaad u muujinaysaa inuu yahay qof ku weyn naftaada waana xushmad dheeri ah oo aad siiso qodobka siddeedaad ayuuna noqonayaa qodobkan oo ah calaamadaha lagu garan karo inuu ku hayo jacayl dhab ah qodobka sagaalaad
wuxuu yahay niyadda oo aad kala sheekaysato. inta badan marka uu kaa maqan yahay qofka aad jeceshahay waxaa dhacda in si keli ah aad ula sheekaysto naftaada adigoo ka soo qaadaya inuu kula joogo. waana calaamadda sagaalaad ee lagu ogaado inuu ku hayo jacayl dhab ah. qodobka ugu dambeeya 10aad wuxuu noqonayaa inta uu kaa maqan yahay oo aad ka walwasho. qodobkan way ka midaysan yihiin dhammaan dadka uu haleelay jacaylka dhabta ah. inta uu kaa maqan yahay ruuxa aad jeceshahay waxaa naftaada soo gelaya walwal iyo baqdin fara badan. inta badan waxaad ka walwalaysaa meesha uu ka maqan yahay ama meesha ay ku maqan tahay, xaaladdeeda iyo xaaladdiisa, iyo si guud muuqaalkiisa oo idin. calaamadahan iyo kuwo kale oo la mida haddii aad aragto waxaad tahay ruux uu haleelay jacayl dhab ah ee ka fikir keliya sidii aad ku raaligelin lahayd naftaada. raaligelinta naftaada ayaa keliya ah marka marxaladaas la marayo in ay hesho waxa ka maqan oo ah in ay riyadeeda u rumaydo. rumaynta riyadaasi waxay u baahan tahay karti, kalsooni iyo adkaysi inaad ku beerto marka hore naftaada si aysan kaga baqin wax walba oo ka hor imaada.